madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka codsatay in dalkiisu uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee aanu duuliyuhu saarnayn. Erdogan ayaa warkan sheegay xilli uu ka falcelinayay dhoolatus military oo ka dhacay caasimadda Athens kaasoo ay ka qayb galeen ciidamada Greek, Faransiiska, Masar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. waa arrin lala yaabo in Sacuudiga uu ka qayb galayo dhoolatuska ciidan ee Greek halka dhanka kale ay naga codsanayaan inaanu ka iibino droneskeena. waxaanan rajaynayaa in aanu arrintaasi si degan ku xallin doono, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan. dalka Turkiga ayaa u arka dhoolatuska ciidan ee ay dalalka ka sameeyeen Greek mid looga soo horjeedo Ankara oo uu khilaaf kala dhaxeeyo xukuumadda Athens. xiriirka Ankara iyo Riyadh ayaa gaadhay meel xun kadib dilkii wariye Jamaal Khashoggi sanadkii 2018 loogu geystay gudaha qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul. Ankara ayaa Sacuudiga cadaadis ku saartay dilkaasi, waxaana markii dambe hoos u dhacay xiriirka ganacsi ee labada dal kadib markii aan si rasmi ahayn ay magaalooyinka boqortooyadu u dhimeen iibsiga alaabta lagu sameeyo dalka Turkiga.